حسين سياد ما شاء الله تبارك الله. walaalayaal aad iyo aad baad u salaamantiin dhammaantiinba magacaygu waa Cusmaan waxaan joogaa wadanka Canada oo aan ku noolahay alxamdulillah waxaan ahay qof kamid ah ama qof ganacsada oo kamid ah shirkadda weyn Allah baa weyn ee caalamiga ah magaceedana la yiraahdo Forever Living Product Company marka insha Allah warbixinteenu waxay ku saabsanaan doontaa marka hore waa maxay company-gani muxuu yahay inaan isla ogaano mar labaad waxaanu ka hadli doonaa company-gan iyo wax soo saarka ama company-gani waxyaabaha uu qabtay uu ka shaqeeyo iyo waxa uu inoogu tala galay si aan uga faa'iideysano insha Allah mar saddexaad waxaanu ka hadli doonaa insha Allah company-gan iyo sida dhaqaale ama lacag looga sameeyo waliba ma garanaysaa isbedel nololeed looga gaadho ayaynu ka hadli doonaa insha Allah ugu dambeyn waxaanu ka hadli doonaa warbixinteena soo gabagabayn doonta company-gani sidee baa looga mid noqon doonaa marka warbixinta waxaan ka codsanayaa inaad la bilaabato isla markaana aad la dhamaysato meel yar oo jawi degan aad tagto aad ma garanaysaa waxa weeyaan meelaha muhiimka ah aad qorato wixii su'aalana xagga dambe insha Allah ayaan iska weydiinaynaa intaa kadib warbixinta markay dhamaato waxaan iniigu dari doonaa why maxay u tahay maanta waqtigii saxda ahayd ee caawa inaad Forever Living Product Company inaad go'aan qaadato oo ka faa'iideysato sababta keenaysa caawa inaad ka faa'iideysato fursadani waa maxay ayaynu ka hadli doonaa ku soo gabagabayn doonaa runtii waxaan isku dayi doonaa inta Ilaahay iga karsiiyo inaan ma garanaysaa walaalayaal xogo dab ah oo ma xaqiiqooyin dab ah oo ganacsigan ku saabsan aan idin wadaago maadaama aan ahay qof ma sha Allah muddo ganacsiga ku jira khibrad weyn ganacsigan ma sha Allah ka dhaxelay ayaan doonayaa marka aniga idheego saambal insha Allah ta'ala warbixinta iyo waxaan wado kadibna insha Allah ta'ala wixii su'aalaha ayaynu xagga dambe isku leeyahay doonaa warbixintiina way noo bilaabantay soo dhawaada dhammaantiin walaalayaal company-gana magaciisa waxa la yiraahdaa Forever Living Product Company waa company weyn oo caalami ah isla markaana lagu sameeyay wadanka Mareykanka sanadii 1978 company-gu wuxuu ka shaqeeyaa wadana gaadhaya maanta ilaa 160 wadan waa company ballaaran ma sha Allah tabarakallah dad iyo aad u fara badan ay walaalayaal ka faa'iideysteen company-gu wuxuu leeyahay dhaqaale aad iyo aad u badan waana company qani weeyi sanadkii hore aynu ka soo gudubnay ee 2020kii company-ga waxa soo galay dad gaadhaya ilaa 1 milyan oo qof horena waxa uga shaqeynay dad gaadhay ilaa 10 milyan oo qof ku dhow tirada guud ee dadka ka shaqeeya waa malaayiinka qof walaalayaal marka caawa insha Allah waxaad ogaan doontaa maxay malaayiin qof company-gani uga shaqeynayaan maxaa keenay company-gan inuu 43 sanadood uu adduunyada ka shaqeeyo waa inteen leeg intaan ku kalsoonaan karo company-gani waxaad ku kalsoonaan kartaa 100% waayo company-gani waxa uu ku damaano qaadayaa wax kasto aaminaadaada ama si kalsoonidaada dhisay walaalayaal insha Allah ta'ala company-gu muddada uu jiray waxa uu sameeyay dhaqaale aad iyo aad u ballaaran oo runtii ma garanaysaa ay ka soo bilaabmay millions ka soo bilaabmay maantana balaayiin dollar buu marayaa sanad kasta intaas oo malaayiin oo dollar buu macaasha oo faa'iido company-ga soo gasha insha Allah hadii Ilaahay ku qadarana faa'iidada company-ga soo galaysa qayb ayaad ka noqon doontaa insha Allah ta'ala walaalayaal company-gani inaga Soomaali ahaan waa company nagu cusub si marka loo eego 3 sano u dambeeyna wadankeena si weyn uga shaqeynay dhammaan tuulooyinkeena degmooyinkeena meelo kala duwanna runtii dad fara badan ay ka wada faa'iideysteen way company-gani waxa uu inooga yimiday wadanada bariga dhexe gaar ahaan qaybta bariga dhexe laanta Dubai ee wadanka isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa waxa laynooga furay magaalada Hargeysa sidaas awgeed magaalada Hargeysa waxaynu ka helaynaa dhammaan wax soo saarka company-gani waxaynu ka helaynaa adeegyada company-gani bixiyo waxaynu ka helaynaa yaani xarun rasmi ah ayaa ma sha Allah tabarakallah inoogu taala oo wax alla wixii company-ga inooga xidhan oo dhan inoo fudaydinaysa ma sha Allah iyadoo xaruntaasi xafiiska Hargeysa uu hoos tagayo xafiiska guud ee Imaaraadka Carabta xafiiskaasina waxa uu hoos tagay Imaaraadkuna wadanka Mareykanka oo ah xarunta guud ee company-ga walaalo Soomaaliyeed khayr Allah siiya caashay Mustafa la yiraahdo ayaa company-gani sabab u ahaa inuu dhulkeena yimaado oo dad badan ay ka faa'iideystaan ma sha Allah dadkii wadankii joogay dad badan baa ka faa'iideystay anigu waxaan ka mid ahay dadka ka faa'iideystay iyagoo qurbaha jooga waliba ganacsigan ka bilaabay wadankii walaalayaal company-gani
waa company qiimaha leh waa company aad ku kalsoonaan karto boqolkiiba boqol weey maasha Allah companyga haddaan intaa uga soo gudbo companygani muxuu qabtaa waa su'aashaad isweydiinayso ee ugu muhiimsan baan dhihi karaa waxaan isweydiin doonaa waa maxay baahida alaabta companygan loo qabo waa maxay companygan productiga uu soo saaro waxyaabaha ay kaga duwan yihiin alaabihii hore suuqa u yaalay ee laga shaqaysan jiray ama laga ganacsan jiray ama waddankeena loo soo dhoofsan jiray waxaan ognahay waddankeena inuu yahay waddan yacni waxa uu isticmaalayo wax waliba banaanka uga yimaadaan waddanka ay wax walba uga yimaadaana walaalayaal waa China way seen la wada soconaba marka maanta alxamdulillah waxa ilaahay mahadiya alaab Mareykanka kaaga timiday oo suuqeeni soo gashay inaad ka faa'iideysan doontaan maasha Allah inta badan waa dhif iyo naadir inaad hesho productiyo Mareykanka kaaga yimiday oo waddankaaga aad ku dhex isticmaali karto falillahi alhamdu bisharo waxay noo fududeysay shirkadeena weyn caalamiga ah oo alaabteeda intay ku soo sameysay waddanka Mareykanka guud ahaan waddanada caalamka ay gaarsiinaysana waddankeeni kamid dhigtay walaalayaal maasha Allah tabarakallah marka waxaynu ku dooranaynaa alaabta company-gani soo saaro walaalayaal waxaynu ku dooranaynaa waa alaab dabiici ah boqolkiiba boqol natural ah waa alaab laga sameeyo geedka dacarta oo leh faa'iidooyin aad iyo aad u ballaaran u leh guud ahaan jirkeena qaybta gudaha qaybta dibadda meel walba leh tusaalaan gudaha markaan ka hadlayno geedkan dacarta waa la cabaa maasha Allah tabarakallah waxa uu ka caafimaadiyaa oo qofka uu ka daaweeyaa xanuunada caloosha ka bilaabma sida gaaska sida bawaasiirta waxyaabahaas oo dhan calool istaaga maasha Allah tabarakallah runtii waxa weeye waa geed mucjisa oo daawadiisa ilaa iyo qarniyo badan la soo isticmaalay weeye walaalayaal maasha Allah tabarakallah company-gu wuxuu noo hayaa sidoo kale alaabo inooga yimaada shinnida khayraadkeeda oo maxay ahaayeen hadda alaabaha waxa kamid ah malabkiyo saafiya waxa kamid ah productiyo difaaca jirka lagu xoojiyo waxa kamid ah kuwa miisaanka kor loogu qaado dhammaan halkay ka yimaadeen shinnida khayraadkeeda ayay ka yimaadeen walaalayaal shinnida khayraadkeeda waxa weeyaan waa waxyaabaha shinnidu isticmaasho ayaa laga sameeyaa okay maasha Allah tabarakallah marka company-geenu wuxuu leeyahay beero waaweyn oo dacarta laga soo saaro iyo beero waaweyn oo malabka iyo khayraadkiisa iyo shinnida khayraadkeega laga soo saaro maasha Allah tabarakallah haddaba geedahaasi iyo beerahaasi markay baxayaan caalamkan iminka aynu ku noolnahay inta badan waxa lagu sameeyaa geedkii cimrigiisii waa la dedejiyaa hore ayaa loo dhaqaajiyaa geedkii isagoon xilligii uu ku qaangaari lahaa gaadhin xilligii ku bislaan lahaa aan gaadhin ayaa la munaafacaadsadaa laakiin forever geedaheega ama dhirteeda walaalayaal si dabiici oo natural u baxaan waqtigooda ayayna qaataan looma isticmaalo sunta cayaanka iyo wax weyn tabeera lagu buufiyo guud ahaan alaabta forever soo saarto waxay ka kooban tahay alaabahan inay muuqda ee ka kooban yihiin cabitaanadii waa kuwan dacartii maasha Allah tabarakallah caagadani ku jirta saa iniga muuqataba ilaa 1 litir baalka ku jira maasha Allah tabarakallah dacartan ilaa dadka macaanka qaba isticmaali kara dadka dhiikarka qaba isticmaali kara fiitamiino fara badan baa ku jira maasha Allah tabarakallah boqolkiiba 9.7 waxay ka kooban tahay walaalayaal waa saafi waa dacar saafi weey marka maasha Allah waa productigii ugu horeeyay company-geenu uu soo saaro 3 iyo 40 sano ka hor waa tii lagu bilaabay shirkadda weeyaan ilaa maantana waa mid ka mid ah alaabaha loogu jecel yahay ee loogu gadashada badan yahay weey waayahay haddaba alaabaha waxa kamid ah qaybaha qurxinta kamid ah weedi kan arkay walaalayaal maasha Allah waxa kamid ah qaybaha miisaanka kamid ah alaabteena waxay ka kooban tahay guud ahaan 3 qaybood qaybta koobaad waa qaybta qurxinta qaybta waxaan ka wadaa caafimaadka iyo xoojinta caafimaadka qaybta labaad waa qaybta maareynta miisaanka qaybta saddexaadna waxa weeyaan qaybta ma garanaysaa qurxinta weey sidoo kale bogos baa jira alaabo bogos oo xiran ayaa jira oo iyaguna magasha Allah tabarakallah qofku darajooyinka shirkadana uu ku gaari karo alaabo xiran oo siibin karana weeyaan alaabaheenani qof kasta u baahan tusaalahan waxaad ka garanaysaa qaybta caafimaadka caafimaadku qof kasta waxa uu yahay number 1 waa waxa ugu muhiimsan tusaalahan caafimaadkayga inaan ka fikiro waa mas'uuliyadkayga koobaad ee aniga naftayda ay saaro weeyaan okay ma tayada kaliya inaan ka fikire ka qoyskayga inaan ka fikirana waa laga maarmaan ka qoyskayga inaan ka fikiro kaliya maahine teelkayga inaan ka fikiro waa laga maarmaan teelkayga kaliya maahine bulshada jaarkayga iyo cid walba dadkan la noolahayna inaan ka fikiro waa laga maarmaan degmada iyo tuulada aan ku noolahay caafimaadkooda inaan ka fikiraana waa laga maarmaan waddankan ku noolahay caafimaadkiisa dadka ku noolna waa mas'uuliyad saaran haddaba isweydii caafimaadka guud ee dadkeenu waa sida walaalaya
in badan waxaynu maqalnaa alaabo badan oo daawooyina ayaa waddankeena la keenay qaar baa la soo qufay qaar baa chemicals yani dhacay waxaasay nagu soo dhaca inta qarsoon baa ka badan intay noo muuqata xaqiiq soo maaha maasha allah marka maanta insha allah waxaynu helaynaa alaabo dabiici ah oo runtii aad iyo aad aynu uga maarmi doono daawooyinka chemicalska leh ee dhibaatada badan gaadhsiinaya alaabtani maaha wax u baahan inaad dhakhtar tahay amase inaad tahay physician dhakhtar wax soo barta inaad tahay because alaabteenu ma aha ma garanaysaa daawo dhakhtar qoraayo maaha alaabteenu waa alaabo dabiici caafimaadkeena kor u qaadaya oo xoojini wey waxaa ka mid a qaybta gaaska ood ogtihiin baahidiisa adiga familigaaga edada in adeerka imise qof ayaa gaas ka cabanaya hadda qoro insha allahu tacaala si aad ugu caawiso oo iyagana aad maasha allah tabaaraka allah ay kugu duceeyaan adigana aad uga faa'iidaysato laba imisaad garanaysaa bawaasiir ka cabanaya familigaaga dhammaan waa alaabaha inoo diyaari weeyaan lafa xanuunka jilba xanuunka qaybaha taranka ragga iyo dumarka maasha allah labadaba inoo yaalaan waxay noo yaala sidoo kale qaybtii maareynta miisaanka miisaan dhimista iyo miisaan kordhinta waxay noo yaala qaybtii qurxinta sida finanka kuwa biinaya haaraha kuwa biinaya gudguduudka kuwa biinaya waxaasoo dhan bay noo yaalaan mataqaanaa waxa la idhaahdo big power qof yaqaanaa ma jira big power waxa la idhahdo mataqaanaan dhammaantiin mataqaanaa walaalayaal qof yaqaanaa may nagu jira big power baalka la idhaahdo big powerku waxa weeyaan walaalayaal waa wax loo isticmaalo in ma garanaysaa miisaanka kor loogu qaado soo maaha dhibaatooyin badan baynu ka dhaxlay soo maaha daawooyinka chemicalska ah ee hableenu aadkay u isticmaaleen iyagana soo maydaan arag walaalayaal waxaasoo dhan waa maxay oo waxyaabo ma garanaysaa dhibaato leh oo side effect leh dhammaan waa laga maarmayaa maanta maasha allah tabaaraka allah maanta waxaad uga maarmi doontaa alaabtan dabiiciga haddaad doonayso miisaankaaga inaad si yaroo fudud ku kordhiso oo dabiiciya halkan ayay ku taalla haddaad doonayso miisaankaaga inaad si yaroo fudud iskaga ridana halkan ayaad ka helaysaa oo dabiiciya oo wax dhibaato aan kuu keenin oo garantii leh walaalayaal maasha allah tabaaraka allah haddii finankii haarihii wixii oo dhan shoppingkii bay noo yaalla qayb kale ay noo taallo iyadana ah qaybta maalinlaha loo isticmaalo qaybta maalinlaha loo isticmaalo ka mid ah daawada ilkaha dhiigaya qofka maasha allah ciri dhiiga afkaaga udgoon kaaga dhigaysa ama waxaa la bad odor af urka oo kale la dagaalamaysa jeermiska afka ku yimaada waxaasoo dhan ilaalinaysa qof kastaana runtii u fiican dacar ka samaysanaya iyo xabagta malabka maasha allah tabaaraka allah waxaa ka mid ah diyodaroonadii kilaakisha loo isticmaalay kilimaadkii qoraxda kaa celinaya ka mid a kuwii waxa weeyaan wejiga saliidda qof kaleba ka mid leh uu isticmaalaya ka mid a kuwa qofka wejigiisu saliidda ku yar tahayba ka mid a qurxin oo dhan baa inoo taalla maasha allah tabaaraka allah maasha allah haddaba alaabahan yaa iibsanaya alaabahan qof kastaa iibsanaya because awal miyaana timahaaga aanad ka shaqayn jirin qaybtii timaha inoo taalla sidoo kale qaybta timahaaga miyaanad ka shaqayn jirin oo timahaaga aanad nadiifin jirin ma qof aan timihiisa nadiifin baa jira miyuu jira qof aan timihiisa nadiifin qof aan jirkiisa nadiifin miyaa jira saabuniida inoo yaalla maasha allah ilkiisa ma qof aan nadiifin baa jira waxay noo yaalla ma garanaysaa waxay noo yaalla daawadii ilkaha oo aad iyo tiyadeed u sarrayso maasha allah tabaaraka allah imise qof ayaad garanaysaa faamiligaaga oo gaas ka cabanaya babaasiir ka cabanaya taranka xagga ragga iyo dumarka awooddooda bacrimooda ay aad u hooseyso ka cabanaya aad u badan yihin that means alaabtan waa alaab looga baahan yahay ma garanaysaa alaabtan waxa weeyaan walaalayaal ma garanaysaa waa alaab qof kasta u baahan waa dabiici waa organic wax dhibaataa kuma gaarsiinaysa hadday wax dhibaataa ku gaarsiiso aniga ii kaale because waxa weeye adigu inaad si qaldan u isticmaasho mooyaane instructionka haddii lagu siiyo waa alaab dabiici iyo natural caanaha waa taqaanaa soo maa caana caadiya caana hadday xun yihiin wax ku yeeli karaan soo maa alaabtina waa saasoo kale weeyaan biyaha waa taqaanaa soo maa biyaha hadday xun yihiin ama ay sun leeyihiin ama dhibaato leeyihiin unbay wax ku yeelayaan alaabteenu haddaba waa halkaas marka 100% waa alaabaad ku kalsoon tahay oo maasha allah tabaaraka allah waaya haddaba walaalayaal waxaynu isla aragnay oo qiimeynay waa maxay companygani waxaynu qiimeynay oo isla aragnay alaabta uu soo saaro waxaan inii dareensiiyay oo aan si fiican aan jeclayn inaad u fahanteen alaabtiisa inuu qof kasta u baahan yahay gurigaaga in looga baahan yahay meel dhan inaan la tagin haddaba sidaad uga shaqaysanaysaa company aad ku qanacday oo qiimaha intaa leeg leh oo laga yaabo adiga inuu kaa daawan yahay oo adduunka intaasoo waddan ka shaqeeya oo waxa weeyaan ma garanaysaa alaab dabiici oo natural soo saara oo dhaqaalihiisa halka zero kasoo bilaabay $1,000,000 maantana $1,000,000 bac maraya company noocaasa
sidee baad u jeclaan lahayd inaad ka shaqaysato ma jeclaan lahayd inaad ka shaqaysato companygaasi alaabo dabiici iyo natural adiga aad u baahan tahay dad kale u baahan aad garanayso ma jeclaan lahayd su'aasheedu waa taas haye ma jeclaan lahayd ma jawaabtiin aan arko maasha allah tabaarakallah dhammaantiin waa jeclaan lahaydeen dabcan soma ma qof aan jeclayn baa inagu jira dhammaan waynu jeclaan lahayn qof aan jeclayn miyaa jira noloshiisa horumar ku sameeyo qof aan jeclayn miyaa jira inuu dhaqaalo sameeyo ma taqaanaan dadkeena inta bilaa shaqo ah waddankeennii oo kale dhallinyaradeenni ma taqaanaan qof kasta maanta in wax sameeyo u baahan yahay qof aan wax u baahnayn walaalayaal ma jirto maasha allah tabaarakallah haddaba insha allah waxaan isku dayi doonaa inta ilaahay iga karansiiyo inaan magaranaysaa walaalayaal ini tuso sidaad dhaqaalaad uga samayn kartaan kombanigan ama si aad uga shaqaysan kartaan shirkadan caalamiga walaalayaal kombanigani waxa dhaqaale looga sameeyaa laba qaab haye marka hore intana dhaqaale ka samayn ugu horreyn waa inaad kombaniga soo dhex gasho waayo kombaniga waxa dhaqaale ka samayn kara qof shirkadii ka mid ah ID number baa lagu samayn ID numberka lagu sameeyay bilaash baad ku heshay waa faa'iidadii koobaad waxaad qayb ka noqotay shirkad weyn oo caalami ah laba maasha allah tabarakallah kadib waxaad magaranaysaa heli doontaa 5% alxamdulillah yani waxa weeyaan waxyaabaha mucjisaadka shirkaddan leedahay qofkii lacag laguma xidhayo si bilaasha loo diiwaan gelinayaa kadib waxa weeyaan magaranaysaa qiimo dhimis markaa helayaa ID number caalami iyo international ID ayuu helayaa and you can order anywhere in the world meel kasta adduunyada ka midana alaabaad kaga iibsan kartaa dhigaasi oo ilaa 160 ka wadan ma garanaysaa shirkadu ku taalaba ah maasha allah tabaarakallah inta maxaad ku heshay inta waxaad ku heshay kaliya inaad istiwaan gelisay aan habeeratay wax shardi lagu xidhin waayi hore u soco muhiimadaadu maxay tahay marka inaad ma garanaysaa qiimo dhimis inta ka ballaaran hesho 5% inaad ma garanaysaa wax weeyaan faa'iidooyin kala duwan hesho inaad sii barato sida dhaqaale looga sameeyo gudaha inaad u sii gasho muhiimadaadu waa inta marka alaabtii baa dalban u horeysay dalabkaagu hadduu gaadho xaddi la yaqaano oo ay shirkadu cabirto hadduu gaadho maasha allah waxay ku leedahay shirkadu mabruuk maanta waxa soo gaadhay darajo muhiima darajadii koobaad baad buuxisay maanta laga bilaabana waxaad ma garanaysaa heli doontaa qiimaha jumlada lagaaga iibinaya alaabta adiguna waxaad ku sii iibin doontaa qiimaha tafaariiqda marka waxaad garanaysaa shayga aad siinayso inta aad siinayso waad garanaysaa sidoo kale waxaad garanaysaa shaygan inta uu kugu joogo labada waad garanaysaa maasha allah tabaarakallah $100 aad iibiso $30 faa'iidaad helaysaa $200 aad iibiso $60 baad helaysaa $500 aad iibiso maasha allah tabaarakallah lacag badan baad helaysaa ilaa $150 soma maasha allah tabaarakallah 30% baad leedahay maasha allah tabaarakallah maasha lacag aad u badan weeyaan alaabtii baad faa'iido inta la ka samayn doontaa sidoo kale darajada koobaad markaad buuxiso shirkadda waxa kugu bilaami doonta inaad dariiq labaad uga samayso dhaqaale oo ah inaad walaalaha ku soo xidho oo aad walaalaha caawiso tusaale aynu weydiiyo waxa laga furay magaaladaada ama xaafadaad degan tahay dukaan aad iyo dhar qurux badan iibinaya ama tusaale ahaan dukaan restaurant hotel aad iyo cunto macaan oo la isku arkay oo waxa weeyaan haddii aad marka cashayso ama si aad ka cuntayso ay naftu ku leedahay soo naftaadana aad la jeclaanayso dad kalena aad la jeclaanayso ayaa xaafadaadii lagaaga furay ma garanaysaa wax weeye magaaladii aad deganeed marka maasha allah habeenka horeysa markaad soo cashayso maalintaaba waxa weeye hadalka ugu horeeya reerkii baad ku bilaabaysaa soma xaafadii maxaa maasha allah wani hotel wanaagsan halkan ayaan ka soo casheeyo cuntadiisa aan hore u aragba wax sameeya soma walaalku ku yaala baa lagu leeyahay intii reerka kula joogta ayaa caysaba soma waxay tegayaan restaurantigii ama hotelkii bay tegayaan qof walba alaa uu dalbanaya dee waa ma garanaysaayey hotelkii waxaad u samaysay markaa maxay xayeysiin baad u samaysay asxaabtaadii baad la sheergarasoo tiri war miyaynaan ogeyn hotelkan kii kale allah ashi faamiligaaga asxaabtii qofkaad aragtaba maxaad leedahay allah war maasha allah hotel wanaagsan baa halkan laga furan leedahay maxaa keenay because waad ku qanacday wixii aad ka isticmaashay ayaad ku qanacday oo aad iyo aad ku cajabiyey markaasaa farxadaadii aad dadka kale la wadaagtay haddaba walaalayaal shirkaddanna taas ninkaasi kuma ogsoona laakiin waxa weeyaan ma garanaysaa waxaad bixinaysaa xayeysiin waxa laga yaabaa 100 qof inaad oral aad information ku gudbisay sidaana dukaankiiba meeshiiba ay macaamiil fara badan ay ku heshaa suuragala oo faa'iido badan uu ninkii ku soo gasho lacagta uu ka faa'iido adiga wax miyuu ka siinaya lacagta uu qofkaasi ka faa'iido wax muu ka siinaya haye su'aashaas rabay in weydiiyo insha Allah si aynu u gogoosano walaalayaal insha Allah lacagtaasi uu ninkaasi ka faa'iiday dadkii aad ku soo xidhay adiga wax miyuu ka siinaya aduu cuntaad ka cuntay
xaafadii dadkii joogan baa tiri dukaan baa halkan restaurant ama hotel baa halkan laga fadhiyo cunto wanaagsan maasha Allah way ku qamaameen way ka soo iibsadeen isagaa ka faa'iiday adiga maxaa faa'iido kugu jirta maya naciima maya adiga wax faa'iido kuguma jirto wax faa'iido kuguma jirto naciima waad mahadsan tahay aad bay naciima mahadsan wax faa'iido adiga kugu jira ma jirto laakiin ogsoono hadaba bal ka waran tiyo lacagad ku helaysa ka waran hadaba oo maanta adigu sheegay markaad isticmaasho daawadii ilkaha markaad isticmaasho ee ilkaha bright ay noqdaan ee qurux badnaadaan ee C9 kama miisaan dhimis isticmaasho ee adigoo 100 kiilo yaad aragtay maanta hada 60 sii maraya asxaabtada ay ku raadaan war maxaad samaysay ee tiraado war kaasaan isticmaalo tiraado ee dadkii saad ugu sharaxdo waxa weeyaan forever living shirkadii bay ku soo jabayaan dadkii way imanayaan way ka mid noqonayaan xarun ma garanaysa kadib waxa weeyaan adiga dadkaas waxay iibsadaan lacag 100kiiba waxa commission aad ku leedahay wow maxaad qabatay kaliya excitement-gaaga iyo farxadaadii unbaa dadka la wadaagtay taadii unbaa dadka saameyn ku yeelatay waana sababtaan raba in aniga farxadayda hadda saameyn kugu yeelato weeyaan maasha Allah tabaaraka Allah because company-gan anu guul weyn baan ka gaaray naftaydu bedelay adigana waxaan rabaa naftaada inuu bedelo maasha Allah marka guud ahaan labada qaab aynu dhaqaale uga sameeynayna inaynu walaalo kale ku soo xidho company-gii adiga wixii markaad gudaha gasho iyo waxa weeyaan alaabtiina ka faa'iideysato insha Allah taala qofaad ku soo xidhi labaad ku soo xidhi qofkiiba 100kiiba inta marka lagu siiyo haddana bari ku kalaad ku soo xidhi ma joogsanaysaa ilaa lacag baad aragtay ma joogsanaysaa Soomaa bulshadii oo dhan baad ku soo xidhaysaa Soomaa team balaaran baa ku sameynaya waa maxay faa'iidooyinka hadaba teamka ku sameysmaya dhaqaalaha ka sameynaysaa wax cayiman ma qoro laba waxaad ku bilaabi kartaa ganacsigani saacado yar kooban hadhowna hadii Ilaahay guulo waaweyn ka gaarsiiyo shaqooyinkaaga kala dhan waa iska deyn kartaa iyada u soo geli kartaa oo iyada xoogaaga waqtigaaga dhan baad gelin kartaa sidaan anigu sameeyay anu wax ku bilaabay party time full time ama waqti buuxaan u bedelay markii dambe tababaraad helaysaa caalamiya iyo kuwa loo kalaba hadaf lagu dhisay oo lagu caawinaya waa business caalamiya oo adduunka dhan ayaa tiimad ka sameynaysa maasha Allah tabarakallah hadiyada qaali ah iyo company bixiya dhamaan hadiyadahaana wad helaysaan hadaba walaalayaal waxyaabaha aanu qabanno waxaan u qabanaa sidan marka hore alaabaha in isticmaasho waa muhiim hadii aad har leedahay hadii wax weeyaan adiga miisaankaagu weyn yahay alaabtina wax ka isticmaasho dalabka koobada isticmaasho وهذا طول علابتي أتبرتين استعماله ومهم ويا لابتها استعماله waxa ku sameysmaya ma sha Allah macaamil fara badan ba kugu sameysmaya oo waxa tira Soomaalidu ituso itaarsi weeyaan waxeegu moogtahay marka insha Allah adiga xaqiiqada marka hore adigu isku tijaabi sheegii oo isku arag kadib waxa sameyn doonta macaamiishaas oo runtii noqon doona kuwa joogta oo bil walba alaab ka gata saawgeed bil walba tukaankaagu waxa uu soo saari doonaa dhaqaale faa'iido ayuu soo saari doonaa soo kale walaaleel waxa dhisi doontaa team walaalaha baad caawin doontaa qaabka teamka loo dhiso qaabka macaamiisha loo sameeyo si aad faa'iido uga hesho labadaba training baad ku qaadan doontaan shaqadaada kale waxay noqon doontaa inaad coach garayso aanad u shaqayso oo macaamiishaada had iyo jeer maxaa dhigay macaamiishu customers are number 1 priority-ga waxa iska had iyo jeer customers are always right had iyo jeer customers maxay yihiin they are right always had iyo jeer way saxan yihiin okay marka customers markasta ganacsi ku jirto waxa muhiim ah customer-kaaga inaad dhisto oo aad ilaaliso oo macaamiishaada hadiyada siiso oo ka farxiso oo ay dad kale kugu soo xidhaan baa muhiim ah marka waxa soo dhaw lagu tababaraya okay you start your business walaalayaal ganacsigaaga baad bilaabaysaa ma sha Allah tabarakallah walaalayaal shirkadina waxay leedahay lacag u gaara lacagtaas lagu cabiraa marka dhamaan darajooyinka waxaan loo yaqaanaa CC qof kasta wadanka uu joogo lacagtaas uu bedelanaya marka waa pointiyo shayadina kamid ah shay kasta oo shirkadda ay soo saarto dibcaha yar buu leeyahay marka intaas oo point leeyahay daawadeelka kii kale intaas uu leeyahay malabka intaas uu leeyahay mid walba intaas uu leeyahay intaas oo point ama dibco ayuu isku geystaa ma sha Allah tabarakallah guud ahaan shirkaddeena waxa dhaqaale looga sameeyaa kow alaabta waxa dhaqaale looga sameeyaa dhaqaale aan cayinayn laakiin la door boqol extra income baa ka soo gali kara dhaqaale dheeriya oo nolosheeda ku dabarta ka soo gali kara sidoo kale walaalayaal teamka aad dhisayso dhaqaale aan cayinayn baa bishii ka soo galaya ma sha Allah sidoo kale shirkaddeena waxa bixisa hadiyada qaaliya dhamaan hadiyadahana lagama xigo adiga lagu talagalay adiga kuwii ka soo horeeyay wad u simantiin marka iyagana wad gaari kartaa dhaqaale ilaa 20 wixii ka badan ayaa lagu qaatay insha Allah taala hadaba walaalayaal sideeba dhaqaalaad uga sameyn kartaa waa maxay talaabada ugu horeysa waxa weeyaan isdiiwaan geliso si aad u hesho qiimo dhimisii koobaad kadib markaad isdiiwaan geliso maxaa xigaya inaad dalabkaagii samayso dalabkaaga markaad samaynayso waxay markaad isku diiwaan geliso shirkadda dhexdeeda waxa tahay qof cusub oo haysta
boqolkiiba 5 ayaad haysataa san hore inagu soo sheegayba diiwaangelintuna waa lacag la'aan maasha allah tabaarakallah kadib waxaa lagaa doonayaa walaalayaal inaad ma garanaysaa darajada koobaad aad buuxiso maadaama shirkaddeenu ay leedahay ma garanaysaa waxa weeyaan nidaam marketing balana oo ay suuqa ugu tala gashay oo ay suuqa ku wajahdo oo qofka laga doonayo inuu raaco weeyaan boqolkiiba 95 haddii aad dariiqan aan caawinii tilmaamayaad raacnaan waxa uu inigeyn doonaa hodantinimo inigeynaya hodan marka ma doonaysaa inaad hodan noqoto ma doonaysaa inaad isbeddel badan noloshaada ku samayso ila raac system baynu maraynaa insha allah walaalayaal okay ma aha systemkan mid aad mishaar ku qaadanayso ma aha mid aad ma garanaysaa waxa weeyaan meherad yar oo aad samaynayso qof yar wuxuu kala iibinaya tahay laakiin waa system aad noloshaada ku dhisayso oo haddii aad marto darajada ay ka sarreysaa ka qiimo weyn tahay weeyaan walaalayaal marka maxaa lagaa doonayaa ugu horreyn darajada koobaad baad joogtaa markaad boqolkiiba 5 haysato kadib waxaad noqon doontaa assistant supervisor oo ah darajada ugu horeysa ee shirkaddan manfaca koobaad iyo faa'iidada weyn lagu helo darajadaasi markaad gaadho waxaad heli doontaa 2 faa'iido faa'iidada koobaad waxa weeye inaad walaalo kale aad shirkadda ku soo darto adigana waxa weeyaan alaabtii jumlad baad ku helaysaa si aad darajada u gaadho waxa laga doonayaa 2 dhibcood ama 2 siisi lacagta ay shirkaddu isticmaasho inaad iibsato ayaa laga doonayaa haddaad doonto 1 siisi waad maanta iibsan bishan iibsan bisha kalena 1 siisi haddaad doonto nus baad iibsan siisiga nuskii nusna isbuuca kala iibsan adoo iska yaraysa haddaad doonto marka labadaas siisi hargeysa markaynu wax ka gadanayno ama wadankii $480 bay u dhigmaan waa markaynu kala dooranayna alaabta ee leedahay intaasoo daawadeelka ay keen intaasoo saabuun ay keen intaasoo malabkii keen intaasoo creamka finanka ay keen intaasoo kii anti-aging ama xagga daada ka hortagay ay keen intaasoo waxa weeyaan kii wajiga saliidda ka biinayay keen kii qurxintii keen deodoronadii keen kii qoraxda difaacaya wajiga ka difaacaya fallaadhaha ay keen miisaan kordhintii keen kii gaaska keen alaabtada kala dooranaya marka darajada koobaad markaad iibsataa adeeg dhan $480 ayaad buuxin doontaa waa wadankii markaad joogto $480 haddaan hal mar wada awoodin maxaad samaynaysaa 2 jeer baad ka kala dhigaan 3 jeer baad ka kala dhigaan 4 jeer baad ka kala dhigaan laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'ahaa furifalifun waa sidaas walaalayaal cidna ma kalifaysa qofka wax dhibaato ma jiraan maanta adeegaaga asxaabtaada familigaaga waxay u baahan yihiin fiiri dhinacyada qof kasta wuxuu u baahan yahay fiiri alaabta u dalab isku geegeyso dadaal samee darajadii markaas aad ku buuxin 480 aad ku buuxin maalinta 480 aad buuxisana maxaad heli waxaad heli alaabtiina ku jabto raqiis ku noqoto $100 aad ka faa'iido maasha Allah jumlada alaabta ku hesho adna tafaariiq ku iibiso waxa kale oo heli doontaa inaad ma garanaysaa team samayso oo groupkii aad samayso groupkii faa'iidooyinkooda horan uga saadleysama dhaqaalaha samaynaysa xad male maasha Allah qofkaad keentaba 30% baad ku yeelanaysaa marka maasha Allah qaabka teamkaad u samaynayso macaamiishaad u samaynayso waxa soo dhan tababar baad u qaadanaysaa maasha Allah tabarakallah marka darajadaas muhiimadaas ay leedahay sidoo kale waxaan nagu bishaareynayaa inaad ma garanaysaa darajada 480 haddaanad hal mar ay kugu yar badan tahay inaad $367 aad hal siisiye bad oo u dhiganta 2 siisi ama 2 dhibcood u dhiganta aad ku buuxin karto waxa loo yaqaano bogos xidhan alaabtii xidhan oo lagu doordooray laakiin aanad adigu doordooraneyn ma doordooranaysa alaabta meesha ku jirta alaab diyaarsan lagu diyaariyay aad qaadanayso maasha Allah darajadiina saad ku buuxinayso markaaba teamkaaga bilaabayso markaaba waxa weeyaan aad hore u soconayso iyadana way jirtaa marka dad lacagta ka shaqeeyso oo lacagtaas leedahay 480 way weeyra badan tahay kan soo galo kan qaado ayay ku leeyahay shirkadu haddii 480 ka aad doonayso inaad kala dooratana waad kala dooran kartaa waad fahanteen soo maaha maasha Allah maxaa xiga kadib waxa iga darajada labaad ee shirkaddan aad noqoto supervisor alaabta mar kale ku jabay sidoo kale waxa weeyaan lacagta lagu qaataa inta badan waxa u dhaxaysa $200 ilaa $700 lacagtii commissionkii qofka aad keentaad ku yeelanaysan aad bay u badanaysaa $100 iyo wixii ka badan ilaa 150 lacag ku dhow bay noqonaysaa maasha Allah tabarakallah kadib waxaad noqon doontaa assistant manager oo darajada saddexaad walaalayaal ee shirkaddeena maasha Allah tabarakallah alaabtii baa ku jabay qofka cusub ee keentana dhaqaalaha u badan ilaa $182 ayaad ku yeelanaysaa maasha Allah tabarakallah sidoo kale waxa weeyaan lacag kale group bonus leedahay ku bilaamaya faa'iidooyinkaaga way sii badanayaan maxaan nidaamkiiba wadnaa hadda systemkan hadaad raacdo mar kastaba dhaqaalaha uu sii siyaadaya bal fiiriya markan supervisor kale yahay waa 200 ilaa iyo 700 weeyaan
assistant managerka waa 700 ilaa iyo 1400 managerka waa 1600 ilaa iyo 2700 dollar markaysan markasta ilaa maxaad ku socotaa hodan bad ku socotaa de qani inaad noqoto ku socotaa inaad ma garanaysaa isbedel samaysaa ku socotaa xisaabi markaa dhaqaalaha inta laga digo helaya hadduu walaalkaa gaadhay walaashaa gaadhay adigu miyaanad gaadhi karin darajada ugu muhiimsan ee afraad waxa loo yaqaanaa managerku waxa weeyaan walaalayaal wax kala maahine inaad shirkadani adigu maamulo noqoto weeyaan qofka maamulaha ama managerkii waxa uu helaa markaa dhaqaalaad u badan buu qaataa shirkadan alaabtina bay ugu jabaysaa ilaa 48% bay noqonaysaa maasha Allah tabarakallah managerka waxa ku furmaya hadiyado waaweyn oo ay kamid tahay dalxiiska shirkadda oo ay kamid tahay maasha Allah tabarakallah gaarigaagii oo ay kamid tahay waxa weeyaan Allahu musta'an شيء شركة كويا رتا مس هديد الشركة هذا الشو ما شاء الله تبارك الله أيها كوب بلا مية ولا ليال هديدها قدام باكوب بلا مية ما شاء الله مكان هديدها يصير لقوه لنا مكان مانيتشر كالنقطة يدنا لقوله قرشين دونا مكان مركورن حالة قادوني أنا درجة كود بحسو درجة اللبات درجة الصدحات درجة أفراد مانيتشر أفرتها درجة بحسو كدي تيم كاجين برعاون دونتا ولا لها برعاون لبقى فدد مانيتشر سو صارتو عدو واحد نقول سينيور مانيتشر ما شاء الله تبارك الله حتى الشباب سو صارتنا واحد نقول سوري مانيتشر ودقلا لو قاتا يدنا إلا 10 كوني وحي كبدن وياهي ما شاء الله تبارك الله هذا كان دركيسان ولا ليال ود الحيسكي أنا قوي شخصيا sanad kan ku guuleystay sanadkii 2020 waxaan ku guuleystay 3 dalxiis baa ku guuleystay koow waxaan ku guuleystay dalxiiskii Eagle Managerka ma sha Allah tabarakallah bataya Thailand ka dhacay wala lockdown u dhacay soo kale waxaan ku guuleystay dalxiiskii Australia ma sha Allah tabarakallah oo noqday runtii kaalin aad iyo aad u weyn ka galay ma sha Allah tabarakallah walaaliyan wada joognay wada garanayaan ay wada xasuustaan wana sanadkii ugu horeeyay shirkaddan si fiican uga shaqeeyay bay ahayd hal sano gudaheeda ku gaaray adigoo isqiyaas maanta miyana sanadkan hadan gaari karin maanta hadaad bilowdo miyana gaari karin walaalayaal wad gaari kartaa xaqiiqatan soo kale waxaan helay walaalayaal cheegay ugu horeeyay shirkadda oo isaguna lacag la ma sha Allah 12 kun lacag isku dhow isku noqonaya ma sha Allah tabarakallah dhaqaale aad u badan walaalayaal weeyaan runtii dhaqaalaha cheega lagu qaataa halka waxa kaaga muuqda Caashe Mustafa oo cheegooga ugu horeeyay qaatay shirkadda 2016 waa dhaqaale gaadhaya ilaa iyo 25 kun kadib waxay heleen ilaa 349 kun kadib waxay heleen 380 kadib waxay heleen 2019 405 kun kadib waxay heleen 420 kun sanadkii 2020 inta sanadkan bishii hore naga dhamaatay April 10keegii aniga iyagu waxaan aniga Caashe Mustafa waxaan noqonnay labada family ee Soomaaliyeed waxa weeyaan darajada cheega gaaray ayaan noqonnay hal sano ku gaaray maantana waxay qorsheysan halka ay gaadheen kumayaalka dollar inay gaadhaan inaan gaadho waa haduu Ilaahay la garab galo laakiin niyadeyda aniga qalbigayga halkaas ku jirta qofka bilaadanka qalbigiisa wax ku jira ayuu Ilaahay mar walba u qaadayaayo inama al-a'maalu binniyat amal kasta waa maxay waa niyada iyo qalbiga weeyaan walaalayaal aniga qalbigayga halkaas ay muuqata adiga qalbigaaga halkeeba ku muuqata insha Allah ta'ala halka ku muuqata caawo baad gaaraysaa meel kale ma gaaraysid meel kale ma socotid haday ku muuqato ma qaban kartid taas ayaa qalbigaagu noqonaya haday ku muuqato wad qaban kartaa wad gaari kartaa walaalkaagu sagaal ku dhashay gaari walaashaaba gaari hiblaya gaari kii kala gaari 3 sano inta ayaa intaas ku qof Soomaaliyeed ay shaqaaleysay shirkaddan dhamaan way gaareen adiga maxaa ku diidaya dhamaan wad gaari wax ku diidaya ma jiro way hadaa quraan ma gaari kartid awoodadan yaani waan ku yasaya hayga yeelin hadaa quraan qof bidaaadna ka yeelin inuu hoos ku dhigo noloshaada Allah ayaa ka kula dhashaan noqdo ogo guushu ay cadooy badan tahay okay maxaa laga doonayaa marka walaalayaal sad uga mid noqoto shirkadeeni walaalayaal waxa laga doonayaa marka hore inaad isdiiwaan galiso lacag laan isku diiwaan gali hadii aad khadka u diri karto qofkii caawa ku soo casuumay magacaaga u dir haye waa haday ka go'antay insha Allah ta'ala u dir soo kale xilliga dhalatay laba u dir sidoo kale waxa weeyaan waqtiga gmail-kaaga u dir ID number-ka lagu soo saaro dalabkana lagu qorsheeyo go'aan guli kama horeyso go'aanka caawad qaadatunba halka doonaysa ku gaarsiin kara xaqiiq sama walaalayaal ani go'aanka qaatalkan uu gaarsiiyay walaalo badanna dariiqi bay saareen inuu u jeedaa maanta adigu kaali soo raac doonta kaali tareenka soo raac insha Allah ta'ala dalabkii baa lagu sameyn darajada koobaad hadaad bogoska ku bilaabayso $360 laakiin alaabtaanad kala doordooraneyn ama hadii aad alaabta kala doordooranayso oo aad ku bilaabayso 480 adoo laakiin aad kala doordooranayso the choice is yours ikhtiyaarka adiga leh walaalayaal shirkadeena ikhtiyaaro badan bay qofka siinaysaa war see doonaysa bal ka warrama walaalayaal ma sha Allah
adduunka iyadoo lagu leeyahay kala shaqayso si alla saa doonta ku bilow lacag la'aan ku bilow bal ka warrama walaalayaal miyaad aragteen noloshiina miyaad aragteen maydaan aragday walaalayaal haddaba walaalayaal dad badan markay ganacsigan soo galayaan waxay u soo galaan sababo kala duwan dadka qaar baa iska soo gala dadka qaarna sabab bay u soo galaan adigu caawa ma noqon doontaa qof sabab u soo galay waa maxay sababaad u soo gashay dad badani waxay u soo galaan inay fursadaha dalxiiska ee shirkaddan ka faa'iidaystaan markay manager noqdaan qaar badan waxay u soo galaan inay hadhow toole ay helaan waxa la yidhaahdo yani pension yani waxa weyn ay helaan oonay ka warwarin markay ay gaboobaan ama daadu ay ka daba timaado maxaad ka shaqaynaysaa maxaad qaban kartaa waxaad aragtaan dad badan oo waayeela oo walaalayaal in badan soo shaqaynayay laakiin maanta daciifay oo tamartu u sheegtay oo maanta waxa weeye weligoodna guri kale ku jiray ayaad aragtaan marka maanta xaaladdu way adkaanaysaa markaas soo maa intaad xoogga leedahay ka faa'iidayso soomaa walaalayaal ka faa'iidaysta intaad xoogga leedihiin dhalinyarnimadeenna ka faa'iidaysano insha allahu tacaala caafimaadkeena aynu ka faa'iidaysano xooggeena iyo maskaxdeena ilaahay waa nimcadu ilaahayna siiyey marka ilaahay ugu shukri inuu kaa dhigay qof islaama wax fahmi kara wax qabsan kara waxa weeyaan kana faa'iidaysan nimcada ilaahay ku siiyey walaalayaal maasha allah tabaaraka allah sidoo kale walaalayaal dad badan waxay u soo galaan inay iyagu noqdaan boss becoming your own boss qofku inuu noqdo isagu waxa weeye cidaan uu shaqaynay weligaa allah qof uu shaqayn maysid ayay u soo galaan qaar badan waxay u soo galaan inay ka helaan dhaqaale noloshooda iyo familigooda ay ku dabaraan qaar badan waxay u soo galaan inay xorriyad dhaqaale ka helaan qaar badan waxay u soo galaan waxa weeyaan inay ka gaadhaan personal fulfillment waxa la yiraahdo ama dhamaystir qofku inuu waxa weeyaan baahiyaadkiisa nolosha dhan ku dhamaystiro ayuu soo galaa maasha allah tabaarakallah aad iyo aad baad mahadsantiin adigu maxaad u soo galaysaa marka adigu maxaad caawa aad rabtaa inaad u soo gasho insha allahu tacaala bal walaalayaal waxaan rabnaa inaan isla eegno dhowr sababood oo